madaxweyne kasta oo islaama mikrofoonka qaatay markaasuu wallahi naxnu muslimiin naxnu kida muslimiintu ha isgarabsato xasan sheekh maxamuud mikrofoonku qaatay maxaa ku taqaanaa hadda waa geesiye ninka Ethiopia intuu dhex tagay Abiy Ahmed ku yiri tuug dhalay baa tahay bad yanjalo badna kuma hayno waxna kuma hayno tuug yahow ummadoo dhanna tusay oo aan ka baqin xataa in la dilo waa ogid madaxda markay Ethiopia ka baqi jireen Ethiopia waxa laga dhaadhicay dadkay sumeeyaan xasan maxamuud Addis Ababa Ethiopia Abiy Ahmed kaga dhaansaday ninka marka nin baqaya ma kafantiisu madax ku sitaa 70 jir dad aaminsan kitaabkiisa inuu Ilaahay midagta ka siinayo waana wax sax ah waxa aad aaminsan tahay baa Ilaahay ugu dhawaataa laakiin hadda waxba aaminsan aad mabda lahayn sida daniyo kala nin qeyrka ay reaction ka bixisa xasan sheekh maxamuud shalay wuxuu sheegay war weyn buu sheegay oo bariga xataa cid ka hadli karta aysan jirin qof islaam oo ka hadli kara aysan jirin Hamza hadda koor warkaas oo kala ka hadlay markaas dunida dhan yaabtay waxa li hadda la bedelayaa bal ninka Hamza ma la bedelo sanadii barka horbeed wuxuu sheegay xasan sheekh maxamuud bariga Afrika buu yiri nabad ma noqonayo ilaa Falastiin la siiyo dhulkeedii oo loo dhiso dawlad xornimadeedu ay ka bilaabatay ama aasaaskadu ka bilaamay 1967 warkaas nin ku dhici kara oo islaam ah oo dunida maanta jooga oo maanta caalamka dalag Sacuudiga ku dhici kara oo Imaaraad baan ku dhici kara warkaas noocaas annagoo hadda dawlad soo kobcanayno oo ciidanka cirka la dhisayo oo kii dhulka la dhisayo oo deegaano badan shabaab maanta laga xoreeyay oo maalin kasta hubka degaya iyo badaha iyo sida dhulka loo difaacayo qarannimada ummadda Soomaaliyeed sida loo difaacayo in warkan naga soo yeero waxay ahayd wax kooma lagu galo xalay koor uma baqin waxa ay xalay wallahi ninkaas meel baa loo wataa iyo billah meesha la doonaha loo watay madaxweyne waxa leenahay jihaadka gal شهيد مدحوينه تاريخنا كحوسي دونتا انا انا سمعادي شرف انه نقوم دوتا maanta waaga hore kuwa caraba halkan oo aan ka iibsan jiray dukaan halkan maanta saddex jeer bigu celinaya Soomaal wala shujaa geesinimadaydi iyo duntaydii Soomaaliyeed ba soo noqotay war sharaftaydi isii ama maqaamka aan Soomaali iyo caalamka ku dhaxlahayd ba wallahi billahi tilaahi degdeg u soo noqonay maanta ganacsiga geeska Afrika anaga hogaaminayno nalagu daray waxaana lagu daray kursiga qaramada midoobay anaga ku fariisanayno oo 1900 sano hadda soo socota anaga kursiga ku fadhina 72 aan ugu dambeeyay kursigaas maxaa sii dheer badaha iyaga aan difaacanay deyntina laga cafiyay cuna qabateen kuwana laga qaaday warday maanta de Hamza wuxuu sheegay markuu lahaa si bilaadanka u noolaayna si dad caadi u noolaayna shidaalkii oo la qodayo yaa uu shidaal mardow ما عرفت يا واحد بران بو بيش قاعد عشان $10,000 ما كسر ابو عداتها يا ابو عديدي ابو والقليه ما انا والله سيات هرسيات برليه انا مستر سيات مستر يعقوب سيات برليه مركز الدنيا باسبور كان هذا وعرفت مدحوينه markuu jarmalka yimi sida maqaamka loo soo dhaweeyo barnaamijka Soomaalida laga macaamilay nimo ilaa baa saaya dadka qaar bas wanaagaas oo dhan u muuqana ookiyaal abaar iska wata deer iyo abaar ookiyaal qabiil buu wata war qabiilka waa qaaraanka si qabiilka laakiin fikirkaaga mabda'aaga dhalinyaranimo waad u baahan tahay dalkan sharaftiisa iyo isiisa maqaamkiisa inuu soo noqdo madaxweyne xasan sheekh dal xoreeye waxa la yahay doo tiimka dal xoreeye mid baa kala yahay war YouTube-ka subscribe saara idinka tiimka dal xoreeye wax badan ku dhigtay baraha bulshada waa laga adeegyaa problemkaas anaga haysta baraha bulshada waana laga adeegyaa xukuumaddeeda waa laga adeegyahay wax tarkayga baraha bulshada oo ku yariya eeda kaliya leeyahay laakiin inta kale dad naga go'aan adag ma bartay ku jirtaan ka soo saarana wallahi waayo waxaan dul istaagay ninkii Axmedoobe ahaa horta ra'iisul wasaariga waa duulaya wata xalay idin sheegay Hamza waa duulaya waa tagaya arintuna laba dalba u dhaxaysa Soomaaliya dalka Soomaaliya oo ra'iisul wasaare Hamza uu hogaaminayo xukuumad dan qaran iyo waxa u dhaxaysa Kenya oo laftirkooda Axmedoobe ku daashay Kenyaati lafkiisa Axmedoobe ku daashay maanta Axmedoobe waxa la shiray oo aeroboortka kula shiray Nuuruddin oo ah ninka sirdoonka dhanay Kenya haysta oo nin ogaadeen ah aadan baradu cala soo diray waxa la u tag baa leeyahay ninkaas intaan Kismaayo ka dhax jeebeen u tag baa leeyahay bari waxa degaya diyaaradii waxa degaya ciidankii ra'iisul wasaare Hamza degaya ilaa 200 ciidan degaya midowga musharaxiintii iyo nimankii hubkooda iyo xoog waa diyaarsadeen ciyaartu marka ogaadeenkii dhaxta la hadda yaa lagu kasoomin kaarka mareexaan fiisa kaarka mareexaanka oo Axmedoobe isticmaalay wuu gubtay
kiiska xilliga farmaajo gubtay hadda dii la geliyo lacag kama soo baxayso expire buu soo qoraya kan timekiisa waa dhacay baa leeyahay fiisa kaar kale oo waxa jira hawiya naceeb baa jira oo hawiya eryanaya ah kaasna wuu gubtay oo tiriibka hore xashiq maxamuud bukaasna shaqeey hadda dii la geliyo ma shaqeynayo ka marka hadda Hamza naceeb fiisa kaar la dhaho ma shaqeynayo waa Hamza waa ra'iisul wasaaraha dalka waa nin ugaadeyna weeye kursi daaroodna ku fadhiya kursi ciyaal iyo kursi Jubbaland iyo kursi xuno xogaa harti iyo xogaa mareexaan iyo sida iyo kabla dhurruq is ceyrsanayaan maaha mana shaqeynayo fiisa kaarka kale aha kabla laxnimada waa shaqeyn lahay markii la geliyo soo tufaya oo leeyahay kabla lax meesha ku fadhiya Kenya kabla lax baa fadhiya Soomaaliya kabla lax baa ra'iisul wasaare ka ah Jubbaland cid u tartamaysa waa kabla lax kaarkaasna ma shaqeynayo qodobkaas la fahanay Soomaa Axmedow marka nafta haysa marka hadda ciidan uu soo dhoobay aeroboortka agtiisa ciidan buu dhoobay xaafadaha qaarkood midowga musharaxiinta degan yihiin ciidamo uu ageeyey iyagana difaacooda u xiran hadduu hal xaba jac kaga soo siiyo wallahi billahi tala magaalada Kismaayo lagu kala baxay ma oga waxa waa xayawaan garka iska soo cadeysanaya boqol waji baa leedahay Axmedow ma ogid wallahi hadda ku sheegay billahi tala hadda Kismaayo xabad ka bilaabata baxay hartiguna daaqadu ka tooganaya mareexankana daaqadu ka tooganaya midowga musharaxiinta dadku dhan la jiraan boqol kaar baa soo isticmaashay kaar ku shaqeynaya maanta ma jiro ka Yaqub Saad meel iska dhigay Hamza meel iska dhigay hatta danigaas hadda ma aragtay meesha jooga maanta dhunta ka leeyahay baan hatta maanta uu og yahay hadda ku soo saaro berito markuu doorasho galo dhabarka ka qaniinaysa nooc lagu raaca male hal waji baa marka Axmedow hadda u haray hadda idin sheegay shacabka Kismaayo fariinta gaarsiiya qaada YouTube kana subscribe saar hal waji baa Axmedow u haray maanta wajiga waa maxay hadda aragtid qof dheer oo xijaab xiran hadda aragto waji naaga u haray hadda aragto oo dhutunaya waa Axmedow haddaba haddaba kugu sheeg hadhow afayeenku nooma sheegin hadhiin hadda aragto qof dheer oo xijaab madow xiran aan xijaab gaduud ah xiran hadda aragto oo xooga dhiitinaya dhuto ku haya dhuto leh hadda aragtid ma aha habar masaakiina qabo aragti ku qabo barta u taagaya ku istaaji waa Axmedow wajiga bas baa u haray waji kale oo Axmedow u haray baan ku ma jiro waka hadda aragto qof indhashareer xiran waa Axmedow oo dheer oo naag ah hadda aragto qodobka si fiican baa kugu dul istaagay Soomaa waa khatartaas marka Axmedow waji kale oo ma haray waji inuu naag iska dhigay kaliya u haray qodobkaasna halkaas ka tagay ra'iisul wasaaruna waa tagay Kismaayo ra'iisul wasaare Xamse xalad taageero shacabka Soomaaliya taageeraan beesha daaroodna taageeraan inta wax kala garanaysa dibira Axmedow wallahi waa kansar daarood ku dhacay wallahi diin wa rabbul kacba waa dhartay waa kansar daarood ku dhacay weey labada nin ilaahayna umada ka qabto annagu waa iska celinayna waayo waxaan dul istaagayaa hanti fiican niman haystaa oo niman reer xirsi ah Umar Maxamuud Umar isma saarna niman reer xirsi ah oo nugaaleeda ragga buurtile ka aadima ah reer garow laftirkooda x ah ilaa ay hadda reer garow ah weeye nimanka horta iskale xaafadan village la dhaho waana niman reer xirsi ah reer xirsi maanta hanti ugu ma horeyso xawaaladaas guryaha ay ku leedahay kaliya halkan kaliya kuma la garowe Nairobi guryahaas kala apartmentooyin ah oo qurux badan oo dadka qurba joogta xataa u fududeynaysa adeegyada iyo wax walba ay yaalaan bay nimankan iska leeyihiin nimankana xaafadan village ee garowe sameeyay waana xaafad aad u weyn weeye waxay qaadaysaa almost oo ku noolaan kara 10 kun oo qof dad gaaraya ku noolaan kara goobii kubadda lagu ciyaarayay bay leeyihiin masaajidadii bay leedahay goobii xataa amaanka laga sugayay oo haday xaalad xumaato ciidamada dhar cad joogta hubkooda xataa dhulku ugu aasan hadda ay sheegayaan marka kii dariga waa kula daaranaya qoliyo ma jartan waxa ay andaraa waxa weeye in maanta inta lagu faano reer xirsi oo taariikhdooda aad garanaysaan oo uu ka dhashay waliba wiilasha hadda hantida leh ee la yiraahdo ilmo orshe wiilasha la dhaho waa reer garow weeye waa reer nugaaleed weeye waa niman la garanayo weeye waa hantilayaal Ilaahay wax siiyay ilaa Sandia ilaa meesha la dhaho Nairobi ilaa Rabbi Ambeerko dhiman Kampala gees East Africa dhanna ilaa Ethiopia East Africa dhan waa niman hantilayaal weeye ilaa Canada حتى وأنا ما لقرنا يو سياسة كندا حتى وحكي جويوي هذي تعلق توقع مركز إياه كان قررنا هذا كده بقول رير حسين رئيس وزاري اللي بعد الصومالي عبد الشاق حاج حسين هذا بقول دني رير حسين واحد
سيدين حرسي نينكي لورنجري او نين رجي اس واي الكجري لاغدي اسنو وان ريح حرسي بو waxa kale oo kamid ahaa Xasan Cali Mire oo ninkii ugu horeeyay PhD qaata qoriga iyo qalinka isna waa nin reexis ah ragii markii dambe SDF ka soo iyagoo labanday hantina haysta dhaqaan la haysta markii siyaad baraaga duugis iyo dawladii kacaanka xunka ay dawladda xunta ay qurunka ay kacaanka markii hawsh la okeetay foodadii ay ku bilowday beesha ma jarteen ragii ugu horeeyay qorigiisa qaatay waa caan wuxuu ku yahay marka qalinka dhig oo qoriga qaado buu caan ku yahay waxa kale oo ka dhashay Cawad Mire oo qaramada midoobay xorriyadeeda ninkii ka soo qaaday basna ka dhashay waxa kale oo ka dhashay Aadan Cabdi Xaashi oo Saliib Boosaaso ilaa SDF haddana taliyaha daraawiishta Puntland intaas oo dhamarka laga soo taariikhda reexilsi waxa inta ku soo koobi kara ma aha reer waalid baa laga leeyahay waxa ka fariin uga diraya sharanshuurka waxa ka fariin iyo baaq uga diraya kuwa dadka hantidooda ku faanaya wala soo reegaro maahi ma anu ku faano dul faan rag meel geeniyo ama faan hanti aan lahayn ku sinayo ama faan wax aan lahayn uu dadkaaga soo qaadayo ma anu ku faano aan reegaro ilayeen oo dhoo kaas caasimadii waa hantidan nima reexirsi aska nimanka xawaalada amal iska leh xaafada village caasimad baa doonaan ka dhiganaya caasimad kale u gaara oo garow geeskeeda ku taal ka dhiganaya dariya teamkiisa dibraya teamkiisa waxa la yaab marka qoliyaha Puntland Forest aaminsan dani waxa wax kaga cunayo sawirkiisa hadba soo saaray irsaaqad ilmo orshe iyo xawaalada amal iyo reer xirsi irsaaqad kale idin dhaanta ilaahay meel kale hadi ka siiyo waan ugu daleeyahay dani lix sano dadka hortaagaya hal mashruuc ma keenin wadani hal wado oo maanteeto isagu u gacantiisa ku dhisay hadda intuu ka tagay Cabduuli Maxaa Cali Gaas iyo GBLG mashaariicdu uga tagay weey hadda inta uu ku faanay maanta ninka weynaaday waxa weeye mashaariicdii xukuumadii isaga ka horeeyay ee ka tageen maanta yimi ilaa maanta qorshe ma hayo hadda tusaale aniga nima YouTuber ah baasayna wadana yara qaar daarood yihiin qaarna hawiyeeyeen wali mi artano magac oo soo qaaday anoo haysta miya aragtay anoo ka hadlay ma aragtay meesha anigu iyagu ma soo galin mabda baa soo galay iyo fikir inaan dadka ugu hadlo wixii saxana ku sheego wixii qaladana dee aan waxba ku darsanba nin daba jooga shalay farmaajo daba jooga maanta xashir maxamuud bujaawid daba jooga shalay Cabduuli Maxaa Cali Gaas daba jooga inuu qof daba jooga ma isagu maalin kasta qof ka maseera ma ahay inuu isagu ninkaas intuu meel istaago wax isaga laga faa'iido habeenka xalay tagay way 5 sano ugu la socday lugooyo waxa maanta ka haray baan ilaahay meel kasta ii bulaa YouTube ka subscribe saar like muuqaalka meel dheer beegaysa barnaamijka inta ku kulmi doono waxa leeyahay hornima ka reer xirsi gabdha iyo wiilal reer xirsi dunida daafeeda meel kasta ay ka joogaan halkan horta ka salaamaya waxaan leeyahay dadaalka Puntland oo haysaana sida xaafadda hadda ku soo kordhiseen village oo aan jirin ganacsato hal reer beel kamid beelaha Puntland oo saasoo kale wax u qaban kara aysan jirin waxa leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad hambaliyo iyo bogaadin baan fiqi reerku ala kaftamaya magac kale waa leeyihiin ونمان هذا أسقطت الحاسدين وحاسد نمان الواحد واحد قال قدام بالله وقدام بيه وحال كسلامة يا فقي هال كسلامة يا أمير كدارات بهال كسلامة يا فقي وحال يا فقي بكون سلامة يا دقيقة نمان بيش الريح السيء برنامج كان برنامج هي أنت كل مدونه السلام عليكم.